waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu soo gabagabeeyay shir ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah maayirada gobolada dalka iyo sidoo kale agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sidoo kale horumarinta jidadka Soomaaliland. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale maayirka magaalada Boorama Badhasaabka gobolka Togdheer iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ee Soomaaliland waxaanay ka warameen ahmiyadda mashruuca GBLG-ga oo ku saabsan shirkani ay maanta yeesheen qaar ka mid ah maayirada gobolada dalka iyo sidoo kale agaasimayaashu waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dhamaanteen meel kasta waan ka nimaadnay waxaan u shaqeynaa qaran isku bax mar saddexaad baan idin soo dhaweynaa rumay shirkii 14aad ee mashruuca maamul dadejinta degmooyinka gobolka jamhuuriyadda badankooda ay ka shaqeeyaan mashruucaas oo runtii ah mashruuc faa'iido badan ee ku soo kordhiyay degmooyinka uu ka shaqeeyo oo runtii aan jecel lahay inuu insha Allah bidilaahi baari degmooyinka kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaari doono waxaan runtii ku amaanayaa gudoomiyaasha degmooyinkooda mashruucan ka shaqeeyo sida ay uga faa'iideysteen aan isugu nimay magaalada Burco oo ballanteedu ahayd markii hore inaan halkaas ugu nimaadno ballantan qabsanay oo ahaa gudida farsamo ee maamul dadejinta oo 45 maalmood hal mar qabsooma si fiican buu noogu dhamaaday waan u mahadnaqaynaa reer Burco iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida ay noo soo dhaweeyeen runtii kulamada sida uu wareegaya ee degmooyinka ka qabsoomaya inay sida u socdaan waana mid aanu ku balansanahay kolba degmeen lagu qabtaa haduu Ilaahay raahdo maantana waxaanu ku soo beegnay Burco maalinta ugu qurux badnayd oo barwaaqo ah oo Ilaahay baan ku dhaartay aan soo ka dhixtig waa shirkii 14aad ee gudida farsamada ee mashruuca maamul dadejinta GBLG ee had iyo jeer ay adeegga bulshada loo hayo iska kaashanayaan dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada caafimaadka hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka biyaha iyo dawladaha hoose degmooyinka Soomaaliland oo qaarna imka cusub yihiin qaarna ay hore ugu soo jireen shirka 14aad oo runtii shirkii ka horeeyayna lagu soo qabtay degmooyinka Berbera iyo Hargeysa iyo Gabiley iyo Boorama ayaan maanta nimid Burco aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa madaxda gobolka Togdheer gaar ahaan Badhasaabka marna naga tagin iyo madaxdii kale halka joogtay sida fiican ay noo soo dhaweeyeen ujeedada shirkuna waxa weeyaan in la kala faa'iideysto khibradda degmo walba adeegga caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wadooyinka iyo hawlaha kale bulshadaba Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Cabaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada